cabirka amaba xajmiga naasuhu kala weynaada amaba kala dheeraada waa arrin ay walwal ku abuurto dumarka da'da yar. waxaa laga yaabaa inaad adugu ka mid tahay dumarka ka walwalsan kala weynaanta ama kala dheeridda naasaha amaba isku arkay. su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay kala weynaanta xajmiga ama cabirka naasaha amaba kala dheeridda naasaha ma wax la xiriiraa cudur oo ay keenaan xaalad caafimaad, mise waa xaalad caadi ah oo aan la xiriirin cudur? intaba muuqaalkan ayaan idinkugu faahfaahin doonaa haddii uu eebba noo ogolaado. fadlan ila dhamaysa muuqaalka, beejkana falowdhe si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo gelin. sidoo kale muuqaalka sheerdheh si ay ugu faa'iidaystaan asxaabta kugu xiran. xagga hoose meeshin ku dheh qaar ka mid ah asxaabta siday ugu faa'iidaystaan. mahadsan. naasuhu waa xubin muhiim u ah hooyada iyo dhallaanka. markii laga soo tago faa'iidooyinka caafimaad ay u leeyihiin hooyada iyo dhallaanku, sidoo kale naasuhu waxay ka qayb qaataan quruxda dumarka. haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay kala weynaanta ama cabirka naasuhu kala weynaada ama xajmiga naasuhu kala weynaado amaba kala dheeraado ma wax cudur la xiriira amaba cudur ay keenaana, mise waa xaalad caadi ah oo aanan keenin wax cudur ah? inta badan naasuhu dumarka waxay ku kala duwan yihiin cabirka ama xajmiga, qaabka iyo halka ama booska ay ku yaalaan. haddii aad isku aragto in xajmiga ama cabirka naasuhu ay kala wen yihiin amaba ay kala dheer yihiin, waxba ha ka walwalin. kaligaa gaarkuuma aha, dumarka badankood way isku arkaan. mana ahan wax la xiriiro arrimo caafimaad daro. waa xaalad caadi ah oo dumarka badankood ay isku arkaan. siyaabo kala duwanba ha ku yimaadaan, hab hidraac ah ama waxyaabo keeno aan la garanayn. siday u kala duwan yihiin amaba u kala weynaan karaan xubnaha kale jirka ay naasuhuna u kala weynaadaan xajmiga ama cabirka ama ay u kala dheeraadaan. waxaana loo aaneynayaa in isbeddel uu ku yimaado amaba kala weynaadaan xajmiga ama cabirka naasaha amaba ay kala dheeraadaan xaalado badan, sida isbeddelka ku yimaado hormoonada jirka, naasnuujinta. waxaa kaloo loo aaneynayaa hidisido iyo in isbeddel uu ku yimaado miisaanka jirka iyo xaalado kale oo badan. intaas kadib waxaan doonayaa inaan sheego qodob aad muhiim u ah oo guud ahaan dumarka in ay ka taxadiraan loo baahan yahay. haddii kala weynaanta xajmiga ama cabirka naasuhu ama ay kala dheeraantu ay ku bilaabato da'da 21 sano, isla markaasna aadan uur lahayn oo ay la jiraan calaamadahan sida isbeddel guud ee ku yimaado naasaha, sida ibta naasuhu ay ka soo baxaan malax dhiig ama barar ku yimaada naasaha, naasuhu uu ku soo kordha wax aad moodo buro markaad farahaga saan aad ugu silaxdid oo socsoconaya, iyo in naasuhu ay aad u weynaadaan ama culeys ama danqasho aad isku aragtid. waxaa waajib kuga ah in aad degdeg ku booqatid xarumaha caafimaadka si baaritaan lagu sameeyo. fadlan muuqaalka sheergaree oo aad gaarsiid walaalaha kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan. sidoo kale beejka falowdhe si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo gelin. xagga hoosena meeshin ku dheh qaar ka mid ah asxaabta si ay ugu faa'iidaystaan. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.